qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah Kenya oo sheegtay inaysan aqoonsan doonin go'aanka lagu wado inay soo saarto maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ku saabsan muranka soohodinta badda ee kala dhexeeya Soomaaliya. duqayn lala beegsaday saldhigyo ay kooxda Al-shabaab ku leeyihiin duleedka magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo. barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta oo caawa ku saabsan raafka ay Somaliland ka samaysay magaalada Laascaanood iyo weliba go'aankani wuxuu ahaa go'aan aniga shakhsiyan aan u arko go'aan fiican laakiin u baahnaa uun habka loo maamulo ama managementkiisu inuu ahaa in muddo la siiyo dadkaas. tallaabo amni lagu suganay ma ahayn, dadka waxay keenaysaa nacay iyo in Somaliland dadkeedii lasoo ururiyo oo Soomaalidii kale u aragto dad baas oo aan lana noolaan karin oo aan loo hoyin karin oo gobonnimo ku jirin. marka arrin aad iyo aad xun bay keenaysaa. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. ku dhowaad 50 ruux ayaa ku dhintay 143 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar qaraxyo loo adeegsaday oo jimcihii maanta ka dhacay masaajid ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan. qaraxa ayaa ka dhacay masaajidka Qozaar Sayid Cabaad ee gobolka Kunduz, kaas oo ah masaajid ay ku tukadaan bulshada gobolkaasi ee laga tirada badan yahay ee muslimiinta Shiicada. goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xilli lagu jiray salaadii Jimcaha ee maanta. afyeenka Taliban Zabihullah Mujahid ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad ka mid ahaa bulshada Shiicada ee Afghanistan. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ilaa ay hadda, hase yeeshee qaraxaasi ayaa yimid maalmo yar kadib markii ay qaraxyo sidan oo kale ah ay ka dhaceen deegaanada ay Shiicadu ku badan yihiin ee magaalada Kaabul ee caasimadda Afghanistan, kuwaasoo ay sheegteen kooxda Daesh. tani intii ay Taliban la wareegtay talada Afghanistan waxaa sii xoogeysanaya khatarta ay kala kulmayaan kooxda uu xafiiltanka kala dhexeeya ee Daesh, kuwaasoo ilaa iyo hadda 2 qarax ka fuliyey magaalada Kabul tan iyo bishii Agost. 2 saxafi oo u kala dhashay dalalka Ruushka iyo Filibiin ayaa jimcihii maanta ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ee sanadkan, taasoo ay ku muteysteen u halgamidda xorriyadda hadalka. Maria Ressa iyo Dmitry Muratov ayaa la guddoonsiiyey abaalmarintan caalamiga ah ee nabadda kadib markii ay si dhiiranaan ku jirta ay ugu dagaalameen xorriyatul qowlka dalalkooda. Brit Reiss Anderson oo ka mid ah madaxda guddiga Nobel ee dalka Norway ayaa sheegtay in labadani wariye aysan matalin keliya dalalkooda, balse sidoo kale ay wakiil ka yihiin dhammaan saxafiyiinta caalamka ee ku taagan difaacidda xorriyadda hadalka xilli ay aad u sii kordhayso cadaadiska iyo madax uga istaagidda dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. waa markii ugu horreysay ee ay wariyaal ku guuleystaan abaalmarinta nabadda tan iyo sanadkii 1935 markaas uu ku guuleystay Karel van Otswetsky oo ahaa wariye Jarmal ah. golaha Senadka Mareykanka ayaa Khamiistii shalay ansixiyey xeer u ogolaanaya dowladda Mareykanka inay si ku meel gaar ah sare uga qaado heerka xadaynta deymaha, taasoo ka badbaadisay dowladda in ay bishan ku dhacdo qaandayn oo taariikhi ah. hase yeeshee weli waxa uu xeerkan u baahnaan doonaa in xubnaha labada xisbi u matala golayaasha sharci dejinta ay kasii doodi doonaan ilaa horaanta bisha Diseembar ee sanadkan. golaha Senadka ayaa xalay ugu codeeyey 61 mudane oo ogolaatay kadib markii ay 50 xubin oo dimuqraadi ah ay taageero ka heleen ilaa 11 mudane oo jamhuuri ah. taasi ayaana fursad u siinaysa aqalka cad in xadaynta deynta dowladda la gaarsiiyo 28.4 trilyan oo dollar. aqalka wakiilada ayaa isna lagu wadaa in uu ansixiyo qodobkaasi. halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa Voice of America Washington. habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. aan ku bilowna ee dowladda Kenya ayaa sheegtay inaysan u hoggaansami doonin go'aanka lagu wado toddobaadka dambe inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda loo soo gaabiyo ICJ, kaasi oo ku saabsan muranka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa lagu sheegay in Kenya ay horey uga baxday ka qaybgalka kiiskan ayna sidoo kale ku biirtay dalal kale oo xubno ka ah qaramada midoobay taasi oo ay ku aqoonsanayaan inay ka laabanayaan xukunka qasabka ah ee maxkamadda sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi hadalka u dhigtay. dacwad badeedka labada dal ee deriska ah ayaa ku saabsan qayb ka mida badweynta India oo labada dal ay ku muransan yihiin lahaanshaheeda halkaasi oo la aaminsan yahay inay ka buuxaan kheyraadka dabiiciga ah ee saliidda iyo gaaska. xukunka maxkamadda ee kiiskan ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo toddobaadka dambe, laakiin Kenya ayaa qoraalkeeda maanta waxay ku sheegtay in soo saarista xukunkan uu yahay gabagabada hannaan garsoor oo khaldan oo Kenya ay shaki ka qabtay kana baxday sida ay wasaaradda arrimaha dibadda hadalka u dhigtay. xukunka ugu dambeeya ee maxkamadda ICJ ee cadaaladda adduunka ayaa ah mid aan racfaan laga qaadan karin, waxaana lagu dhawaaqi doonaa Talaadada soo socota. Kenya oo ah dal madax bannaan laguma qaadi doono maxkamad caalami ah iyadoo aan ogolaansho siinin, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay dowladda Kenya oo sidoo kale ku eedeeyay maxkamadda cadaaladdu inay u wajahday xalinta murankan si eex leh. Kenya waxay aaminsan tahay ayna si joogto ah u tilmaamaysay muddo dheer in xukunka maxkamadda dhan kasta oo uu doonaba ha aadee uu sababi doono saameyn qoto dheer oo amni, siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale ee gobolka iyo meelo ka baxsanba, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya. Kenya ayaa bishii Maaj ee sanadkan waxa ay qaadacday dhegaysiyada maxkamadda ICJ ee kiiskan kadib markii maxkamadan fadhigeedu yahay magaalada The Hague ee dalka Netherlands ay ka diiday Kenya in mar kale ay dhegaysiga kiiskan dib u dhigto. dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud ee Soomaaliya ayaa sanadkii 2014 waxa ay muran badeedka labada dal u gardhiibatay maxkamadda cadaaladda adduunka kadib markii ay sheegtay in ay fashilmeen wadahadallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayay in murankaasi ay labada dal ku xalliyaan. labada dal ayaa ugu yaraan 2 mar xiriirkooda diblomaasiyadeed u go'ay, waxaana Kenya ay safiirkeeda Soomaaliya dib ugu yeeratay sanadkii 2019 kadib markii ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya in sida ay sheegtay ay xaraashtay xirmooyin shidaal oo ku yaala aagga labada dal ay dacwadu ka taalo, iyadoo sanadkii tagayna ay Soomaaliya goysay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal kadib markii ay Kenya dalkaasi ku martigelisay madaxweynaha maamulka goonida isku taagay ee Somaliland. xiriirka labada dal ayaa dib u soo noqday bishii Agost ee sanadkan kadib markii uu dalkaasi booqasho ku tagay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo la kulmay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta. mahadsanid Maxamed. warbixintaasina waxaa noo diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. haatanna Gedo. saldhigyada kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano u dhow magaalada Garbaharey ayaa la sheegayaa in duqeymo lala beegsaday. ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in saldhigyo ay kooxda al-shabaabku ku dhuumaalaysanayeen la burburiyey, sidoo kalena khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac la gaarsiiyey kooxda al-shabaab. duqeyntan ayay Sahare Cabdi ka wareysatay Aadan Siraad Maxamuud oo ah gudoomiye ku-xigeenka magaalada Garbaharey. meel aduu Garbaharey dhanka waqooyi kaga beegan ilaa maaqaan 40 kilomitir meelahaas ayay ciidamada amniga ee degmada Garbaharey ku sugan howlgallo u aadeen 24 saac aan soo dhaafnay goobahaas oo lagu tumayay inuu cadow ku sugan yahay. marka waana laga eriyey wax hadda khasaare ah oo ka dhashay oo dhanka ciidamada ah ama shacabka ahna noloma soo sheegay. duqeyn inay dhacday ayaa wararkana soo gaaraya VOA-da ay sheegayaan. marka wax duqeyna miyaa ka dhacay meesha? walaal ciidamadu cirka iyo dhulkaba way howlgalayeen, waxaana lagu socday taargadyo oo maaragtay bartilmaameed ah. marka duqeynadaas iyo operationnadaas intaba way jireen, laakiin annagu yoolkanaga waxaa weeye in cadowgana la waxyeeleeyo, shacabka ayagaa joogana laga ilaaliyo inay dhib gaaro. marka operationnadaas way jireen, laakiin wax hadda khasaare ah oo dhanka shacabka ah totally ma jiraan. waa gartay. maxaad ku tuhunteen meesha oo ku jiray? walaal waxaan ku tuhunnay dee cadowgu saacad walba raraaqiisa iyo meelaha uu ku sugan yahay iyo meelaha uu isku aruursanaya waa lala socdaa. dhanka kale Garbaharey waxay u diyaar garoobaysaa hanaankii doorashada, waxay ka mid tahay 11 deegaan doorasho ee dalka Soomaaliya. marka muxuu ahaay nimanka dhaqdhaqaaqyadooda iyo maaragtay hagardaabadooda loo naafeeyo, ciidamada marka operationnada noocaas ay wadeen oo howlgal ay ku jireen maalmihii aan soo dhaafnay ilaa haddana ay ku jiraan.
marka goobo lagu tumaayay inay ku sugan yihiin ama ay isugu imaan karaan bay ahayd sidaas baana loo bartilmaameysanaya. yaa wax ku noqday xataa ayaga wax soo gaarood ka warqabtaan ma jirtaa? walaal ayagu waxa weeye khasaarooyin baa nagula sheegayaa gaadiid gubtay iyo meelo ay ku sugnaayeen oo la waxyeeleeyey. marka laakiin dhanka xagga iyaga ah hadday ciidanka ahaan lahayd iyo hadday shacabka ahaan lahaydba wax khasaaraha ma jiraan. hab oo aad u casriyeysan baana ciidamada u howlgelayeen. marka waxa weeye wax hadda xagga iyaga khasaare ah ama shacabka oo khasaare naga soo gaaray midna ma jiraan. waa garta. marka duqeynta xagga cirka miyay ahayd mase dhulka? walaal dhulka way howlgalayeen ciidamada. cirkana waxaa isticmaalayay diyaaradaha waxaana qayb ka ahaa ciidamada kumaandoosta gaarka ah yaa howlgalka qayb ka ahaa. marka labada dhanba wuu ka socday operation. ma jirtaa in ciidamada maraykanka ay ka qayb qaateen ama kuwa amisom ee jooga soomaaliya meelo ka mid a? walaal may waxaa ka howlgalay meesha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo qaybtooda kumaandooska ee loo yaqaano danab. labadaas group oo isbeegsanayso macnaha iskaashanayso ayaa ka howlgalay. laakiin ma jiraan wax hadda ajnabi ah oo aan kuu sheegi karo oo qayb ka ahaa operationnadaas. kaasina waxa uu ahaa aadan siraad maxamuud oo ah guddoomiye ku-xigeenka magaalada garbaharey. waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o eda zahra cabdi axmed. qaramada midoobe ayaa sheegtay in isbahaysiga nato uu qorsheynayo kana fakerayo sidii uu taageero u siin lahaa ciidamada afrika ee dagaalka kula jira kooxaha jihadoonka ah ee ka dagaalama dalalka burkina faso, niger iyo mali. warbixintan waxaa soo jeedinaysa sahre ciidla nuur. nato waxay wadaa daraasado ay ku baadhayso dareeqooyin hor leh oo lagu caawinayo wadamada ku yaala saxaraha afrika, kuwaasi oo 3 wadan oo ka mid a oo xuduuda wadaaga ay dhibaato xoogan ku hayaan ururada jihaadiyiinta ah ee xagjirka ahi. ururadan argagixisada ahi waxay wadamada mali, niger iyo burkina faso ku dileen 10 qof sida lagu sheegay warqad ka soo baxday xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo khamiistii shalay lagu baahiyey warbaahinta AFP. Mr. Guterres waxa uu sheegay in uu ku qanacsan yahay baahida loo qabo in la sameeyo xafiiska qaramada midoobay leedahay oo taageera howlgallada lagu magacaabo G5 Sahel Force, sida in la sameeyo ilaa 5,000 oo askari oo ka kala socda wadamada Mali, Mauritania, Niger, Chad iyo Burkina Faso, kuwaasi oo mushaharka looga dhigayo dhaqaalaha ka yimaada qaramada midoobay. qaabkan cusub oo lagu wajahayo ayaa la filayaa inuu wax weyn ka bedelayo xaaladda wadamada dhibaatadaasi ka jirto. hase ahaatee maraykanka oo ah dalka lacagta ugu badan ugu deeqa qaramada midoobay ayaa ilaa hadda diidan qorshahan oo ay riixayaan dalka Faransiiska iyo wadamo kale oo Afrikaan ahi. bishii Juunayna dhaaftay ayaa ku-xigeenka safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Mr. Jeffrey de Laurentiis waxa uu sheegay in dowladda Maraykanku ay doonayso in la kala qaado labada howlood ee kala ah in argagixisada lala dagaalamo iyo in la sugo ammaanka wadamada sida uu dhigayo qorshaha qaramada midoobay. Maraykanku wuxuu sheegay in kaalmada la siinayo wadamadaasi si toosa loo siin doono halkii loo sii marin lahaa sanduuqa qaramada midoobay maamusho. golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay haatan guddoomiye ka tahay dowladda Kenya ayaa soo jeediyey in dhammaadka bishan guddi xaqiiqa raadina loo diro wadamada Niger iyo Mali si ay daraasad buuxda ugu soo sameeyaan xaaladda dhabta ah halkaasi ka jirta. aad ay u mahadsan tahay Zahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedisay. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. haatanna kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaa magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyey waryaheena Khadar Maxamed Cakulle. maantiinba dhegaystayaal, halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a stuudiyaha magaalada Hargeysa. kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu toddobaadkan kusoo diyaarinay islamarkaana idinka soo gudbinayno magaalada Hargeysa. barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay haddii aan la yidhaahdo oo aanu ku soo qaadan doonaa toddobaadkan bilowgiisii waxaa ciidamada ammaanka ee Somaliland ay ka ururiyeen dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, iyadoo dadkaasi la sheegay in sida ay ciidamada amnigu u sheegeen warbaahinta dilalka ama xagga amniga arrin la xidhiidha ay u sameeyeen tallaabadan.
waxaa ka hadlay arrintan meelo kala duwan weliba qaabka loo galay ayaa meelaha qaarkood ay cambaareeyeen iyadoo lagu tilmaamay inahay tallaabo degdega marka la eego xaqay dadkaas u lahaayeen in digniin la siiyo oo muddo ay haystaan. si kastaba ha ahaatee barnaamijka waxaa martiigu aan aad iyo aad uga mahad celinayaa siyaasi cali axmed cabdi cali cantar oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii somalilan soo maray islamarkaana ah siyaasi gobolka sool ka soo jeeda. waxaan uga mahadnaqayaa wakhtigiisa uu siiyey barnaamijka. aad baad mahadsantay cali. sidoo kale barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan. isagana waxaan runtii uga mahad celinayaa wakhtiga uu siiyey barnaamijka. iyo ugu dambayn sidoo kale barnaamijka waxaa isaguna wakhti siiyey oo martiigu ah oo igala qaybgelaya martina igu ah garyaqaan mubaarig maxamuud falaag oo ah garyaqaan madax bannaan ama sharci yaqaan madax bannaan oo aanu ku eegi doono bal waxaa shuruucda caalamiga iyo xeerarka somalilan u yaalaaba arrintan lafteeda ay ka qabaan. ugu horreyn cali dhammaantiinba soo dhawaada marka hore. cali aan kuugu horreysiiyo marka hore weliba aadna waad ula socotay xaaladda gobolka sool maxaa kaaga muuqda ama maxaa dadka ugu tilmaami lahayd go-aankan ay ciidamada amniga ee somalilan qaadeen iyo tallaabadan dadka koonfurta lagaga saaray magaalada? go-aankani wuxuu ahaa go-aan aniga shaksiyan aan u arko go-aan fiican laakiin u baahnaa uun habka loo maamulo ama managementkiisu inuu ahaa in muddo la siiyo dadkaas oo ay muddadaa ku urursadaan si ay u helaan jaanis ay dayn iyo waxyaalo badan oo ka daadsan ay u qaadan karaan si ay dhulkoodii ugu noqdaan. laakiin waxaad moodaysay in degdeg ku jiro oo ay dowladdu fool ergeysa iyadoo intii horeba 30 sannadoodba qaarkood ay deganaayeen. dee waxa 30 ay u joogeen maanta lagu adkaysan waayey inay bil ku tagaan. waxaad moodaysay anigu maanan garan markaa. waan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa xildhibaan maxamed abiib xildhibaanka si horta aad u aragta adu go-aankan dadka lagu ururiyey lagaga saaray magaalada laascanood. bismillahi raxmaan iraxiim. aad iyo aad baad mahadsan tahay khadran kule iyo idaacadda v o a. anu waxaan u arkaa go-aankaasi mid khalada. waxaan u arkaa mid maad aragtay mid diroorteys ah. waxaan u arkaa mid guud ahaanba kasoo horjeeda maad aragtay shuruucda caalamiga iyo kuwa somalilan degsan labadaba. waayo dad dhibaato kasoo cararay dadkan inay beerahoogii iyo guryahoogii ay beriyaan iyagaa u jeclaa dhibaataa keentay halka. dee waa in wax badan la qiimeeya marka dadkaa la celinayo oo xitaa la qiimeeyo waa dhulka lagu celinayaa nabad ma yahay. warbixintii UNHCR ayadda qaxootiga u dambay soo saartay berigii dhawada Kenya qaxootiga la celinaya waxay sheegtay meel lagu celin karo dad rayida weli maaha Soomaaliya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya maaha ay soo saareen. marka iyadoo warbixintaa aan la iska indhatiray maxaa la yidhahdaa dastuurka somalilan waxaan qabaynay dastuur jibinta. waayo somaliland dastuurka ugu sarreeya labada qodob ee midna ka 10aad yahay ee dastuurka midna 12aad waxay sheegayaan inay somaliland raacayso oo ay ixtiraamayso xeerarka iyo baaqyada caalamiga ah ee xuquuqul insaanka iyo axdiyada qaramada midoobay. axdiyadaasina marka qaxooti la celinayo procedure baa dee loo dhigay la maro oo la raaco nidaam raaco. marka arrimahaasoo dhan iyagaan waxaan u arkaa arrin sharci darraa in ahayd inay gef ku ahayd dadka masaakiinta maaragtay kasoo qaxay dhibaatooyinka. waan soo noqon doonaa adigana waan kusoo noqonaya maxamed xildhibaan. laakiin garyaqaanka mubaarig adigu sharci yaqaan ahaan horta say kugu muuqataa? bismillahi raxmaan raxiim. waa mahadsantay idaacadda v-da iyo ka qaybgalayaasha barnaamijkanba maxamed xildhibaan maxamed abiib iyo cali cantar. waan aad baan u salaamayaa. arrintaasi horta waa arrin aan aniga khalad weyn ila ah oo gef weyn oo bini-aadamnimada laga galay ayaa ka muuqata. ilaahay bini-aadanka ayuu karaameeyey shuruucdeennoo dhanna bini-aadanka way karaamaysay oo xoriyaaddooda iyo amniga naftooda iyo hantidoodaba way ilaalisay. marka arrintaas la qaaday tallaabo waxay ahayd aan loo meeldayin sharci loo eegin degdeg ku jiro gef iyo violation amba gef xagga xuquuqda aadamaha oo la galay bay ahayd. mas-uuliyaddana waxaa lehe ciddii dee hawshaa fulinaysay waa gef baan markaan wax gasha. waad mahadsantay aad baad mahadsantay cali. aan kusoo noqon siyaasi cali cantar taliyaha booliska haddaynu soo xigano wuxuu sheegay in arrintan ay amniga dartii u qaadeen. miyaan la odhan karin markaa duruuf baa keentay? maya lama odhan karo. waxa weeye
horta dee tan xamar ka socota arrinta xamar ka socota laascanood ka socon mayso arrintan dee labaataneeyo intaa dowlad somaliland jirtay in yar bay nabad ahayd inta kale waxay ahayd un way socotay madaxaa dadka laga tooganayo dowladduna way joogtay tii inay markaaba wax ka qabato ayay ahayd waxaad moodaa in si ay u fooleeriyeyso dowladdu oo ay culays u saartay dadkan deegaanka markaas degay ee soomaaliyeed shuruucda haddii dib loogu laabtana maxamed xaaji ibraahim cigaal markuu halkan haystay ee somaliland uu haystay iyo madaxweynaha waxaa jirtay digreeto uu soo dejiyey uu yihi qof kastoo soomaaliya uu degi karaa macnaha ujeeda somaliland oo somaliland uu degi karaa qof kastoo soomaaliya soomaaliya somaliland uu degi karaa wuu ka shaqaysan karaa waa isku sharci ayaa ku wada dhacaya qofka muwaadinkii wixii qabta ayuunbaa qabta laakiin waxaa loo baahan yahay inaanay gelin arrimaha siyaasadda keliya ayahay haddaba waxa weeye haddii hadda ay leeyihiin sida ay sheegayaan taliyayaashu nabadgelyo darteed baanu waxaan u rarnay bay yidhahdeen innagu waxaan imika isku haysana habkii loo maamulay baa khaldanayd managementkii habkii loo maamulay ayaa khaldanayd laakiin haddii ay dadku dambiilayaal xitaa ku jiraan dee dambiilayaasha laftoodii in la baadho ayay ahayd oo dabeetana laga soo dhex saaray aan lala degdegin marka dee ufolerigaasaa jiray waatay aan u imaado xildhibaan maxamed abiib xildhibaan haddana si su-aasha ku weydiiyo in arrinta amni darteed ay u sameeyeen dee arrin ka wey baa meesha ka dhacday amniga dee ciyaal baa dhabarka lagu sidaa la raafay ma amniguu khalkhaliyey kaasi waa iska afkubaati taas waxa weeyaan walaa taasiratun waasiratun wisra ukhraa bu ilahay qofna qof kale dembigiisa ma qaado mucaahadooyinka caalamiga ah ee kaa qaxootiga iyo kamagelya doonka dhammaantood waxay sheegayaan in qofna aan qasab lagu saari karo dowladdu waxay ahayd inay waajibkeeda ay gudato oo qofka amniga khalkhaliyey sidiisa loo abaaro wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan way ka hadashay iyadoo loo jawaabayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya ma muuqataa inay arrintii xasaasiyad kaloo siyaasiya ay kicisay dee mas-uuliyadda innaga yeelayna wax kastoo xasxasiyado ka yimaada adduunyadoo dhan bayna ku dhaleecaysay soomaaliya dalkani waa dal sharci ku dhisan ugu yaraan qof baa dembi galay labaa galay saddex baa galay kuwaa laftoodu way xaq u leeyihiin haddii xitaa laga shako in la saaro ogeysiis bay xaq u leeyihin waxay xaq u leeyihiin in loo sheego oo warqad qoran loo sheego iyagoo bayndhif qof la yidhaahdo hebel wa saasaa lagu weydiyay muddadaasaad kaga baxaysaa waddanka muddada ayaad kaga baxaysaa waddanka hal qof oo adiyada od artay oo dulamaasi oo laga saarayo waddan ayaa waktiga weer loo qabtay 4 saacadood laakiin intaa baabuurkaas tabageliyo qofkii dhaqaaqaba saar meela ka dhacday dee adduunyada waa raaf markaa ninka odhanay dadkan amni darra geysteen isaga waxaan weydiinaya dee ciyaalku maxay geysteen waa caalamudki maxay waatay aad maasanta xildhibaan maxamed abiib mubarik falaag gariiqan haddaad eegtid xagga bal maxamedna carabka waa ku dhuftay lakiin arrinta waxaad muddaa xaggii inay ka soo durugto xaggii siyaasadda haddana ay mar kale laysu jawaabayo horta arrintani tallaabadan la qaaday oo aan markii horena sheegay tallaabo sharciya ma ahayn hay-adaha amniga mas-uulka amniguna jawaab kamay bixin amni darradii ka jirtay oo tallaabadan ay qaadeen kamay jawaabayn amni darradii ka jirtay xagga siyaasadda somaliland marna kuma gergelayso waa arrin dhibko ah waa arrin ay ka dhalan karayso consequence cawaaqib oo layskula xisaabtami karo oo waad arkayso iyo meelo badan baa laga dhaleeceeyey dembiguna maaha dembiga wadar looma wada gale qof kastaa sida dastuurka qodobka 16aad faqradiisa 1 iyo 2 ka hadlaan dembi waa wixii horta sharcisi jideeyey ee maxkamad horteed ka cadaada ee lagu cadeeyo laakiin ummadan 500 oo qof oo 30 sano deganay in la yiraahdo waxaan u aanaynaynaa oo tuunadii waxaan u aanaynaynaa inay amni darro ka lug lahaayeen oo xitaa qof udha oo dadkaa kasoo jeeday inta lasoo qabtay oo indicator amba caddayn u noqon karo la odhanayo dadkaasu ku abtirsanaya kiiskii November waqtigaa dhacay maxkamadda markanu keenay wuxuu ku cadaaday nin dadkaa kasoo jeeda lama keenin mas-uulkiina dee sharcigu ku shaqeeyaa ee sharciga kama sarreeyo
marka arrintaas waxay ahayd sidaa la sheegay waan ku raacsanay qodobka 8aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland dadka muwaadiniinta ah ee joogay la xuquuqin marka laga tago rate food iyo rate in la doortay amba codeeya xuquuqaha noocaas mooyaane si sharci degan marka hore Somaliland ba sharci ku dejisay waa lagu ogaa cashuur bixiyaal bay ku wada ganacsigii waa tahay cali waan iman doonaa waxaan dhegeystayaasha xasuusinaya haddii ay imika nagu soo biireen halkaan nagala socota walaanta afka soomaaliga idaacadda v-o-da waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dadka koonfurta soomaaliya kasoo jeeda ee laga raafay magaalada laascaanood toddobaadkan bilowgiisii ciidamada ammaanka ee somalilan tallaabada ay qaadeen iyo martida igala qayb gelaysa waa cali canjar siyaasi kasoo jeeda gobolka sool sidoo kale xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan iyo garyaqaan madax bannaan mubaarig maxamuud falaag haddaba cali aan ku imaado ma hayno ciddaas allaysa ama dadkani dad bay laayeen laakiin waa lagu soo dhex dhuuman karayaaba hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ku qoran waxaa la soo xiganayaa hay-adaha sirdoonka iyo kuwa amnigu inay sheegayaan in lagu soo dhex dhuuman karo amniga halis ku noqon karaan waxa weeye haddii erayadaa la eegayo waxaa la sheegay nabadgelyada darteed in nimanka loo masaafo waxa gobolka ka dhacayna wuxuu ahaa dil lagu hayo dadkii gobolka u dhashay marka waxaan la qarinayaa maxay tahay ile waxa weeye maxaa ahayd wixii inaynu caddaynaa wanaagsan waxa weeye kuwa la daadguraynaye la wado waxa lagu wadaa nabadgelyadii bay xumeeyeen marka iyaga fartu lagu fiiqay sida hadalku hamal dahnaa laakiin cid baa farta lagu fiiqay ciddii farta lagu fiiqay cidda ku fiiqdayna waa xukuumaddii ee tiri maxaa ahayday amniga dartii baanu u mastaafirinay oo weliba si emergency dadkan u gurna anigu emergency-gaas baan diidanay waata sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda kelmad bay isticmaashay hadalka somalilan waxay ku khasbanaada inay tallaabadan qaado ma loolan karaa xal bay halkaada u aragtay maya waata haddii cidi dembi gasho kuwan raggii sharciga yaqaano waa kan loo filay waxa weeye haddii cidi dembi gasho ciddii dembiga gashay in loo dabagalo oo la baadho cidaan dembi gelin in loo ciqaabo maaha haddii dembi jiray ciddii dembiga gashay in la qabto ayay ahayd laakiin iminka sida loo dhacayo hadalku u dhacaya waxa weeye marka uu ka hadlaayo ninka le xamar waxa ka dhacaya halkan ka dhici maaya mani areeba weeyaan kuwa toogta dadka xamar ee madaxa ka toogta marka laascaanood ka dhici mayso waanu ilaalinayna dee imise sanadood bay waxaanay socdeen maxaa loo ilaalin waaya markaa dalka waynu leenahay in la wada ilaaliyo waa waajib laakiin sida loo ilaalinayo waynay noqotaa si aynu ku wada qanacsannahay marka waxay ahayd inay arrintaa inay dejiyaan ciddii dembi lena ay dembiga saaraan dabeetana la qaado oo la xidho oo wixii uu waajib u leeyahay la mariyo oo sharciyadda la raaco waa hagaag garyaqaan mubaarig halkaa ii joog waxaan dhegaystayaasha doonaya inaan xasuusiyo waxaanu in badan xidhiir la samaynay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warfaafinta iyo taliska ciidanka booliska ee somalilan si arrintan aan wax uga weydiino tallaabadan ay qaadeen laakiin ilaa imika noomay suurtogelin laakiin waxaan doonayaa waxaa jira wasiir hore oo xukuumadda ka tirsanaa aan imika laakiin xilka haynin wasiirka hore ee beeraha somalilan axmed muumin seed oo isla barnaamijka la hadlay kana mid ahaa guddi muddo fadhiday magaalada laascaanood weliba xagga nabadgelyada loogu diray intii ay joogeenna dilal ka dhaceen waxaan weydiiyey aragtiisa la xidhiidha arrintan waxaa ku jira guddigii wasiirada ah ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan u diray muddo hore dhowr wasiir baanu ahayn waxaan joognay 30 maalmood bil iyo dhowr cishaan joognay bisha iyo dhowrka cishaan joognay waxaanu xidhiir la sameynay shacabka muxuaha kala duwan ee laascaanood degan waxaanu wax ugu wareysanay aqoonyahanka dhalinyarta haweenka cuqaasha odayaasha culamada diinka cid walba gaargaar baan xitaa ayaan qof walba u wareysanay dadkaasi runtii waxaanan raadinaynay buugta ee dhiigan daadanaya ee faraha badan leh ee mar walba daadanaya muxuu xal baanu raadinaynay dabeed dadkaas wax inta badan nagu yidhahdeen dadkan hadda la raray hadalkii maalinta dhawadaan idhi waxaa laga yaabaa inay qaarsi kale u qaateen dadkan hadda la raray waxbay dileen oo waxbay laayeen cidna male laakiin dadkan baa lagu soo dhex dhuumanaya bay yidhahdeen aan deegaanka ahayn marka sidaa darteed bay xukuumaddu mar labaad ugu noqotay dabeedna dadkii aan deegaanka ahayn baa xukuumaddu go-aamisay waftigiina go-aamiyeen halkaa tegey in deegaankii ay ka yimaadeen guryahoogii si nabada loogu raro dadkan le waa dad baa la saarayayo somalilan oo dhan bay dadku degan yihiin somalilan xamar bay qaar joogaan waa dad wada degan weeyeen oo aanan dadka shacabkiisa ay meel walba wada degan yihiin laakiin dadkan deegaankan markii 85 qof
intii somaliland jirtay 85 qof baa lagu dilay laascaanood dilkan sababta keenaysa la baadi doonaya waxa la gartay waxaan bal nabarkan dhibaatada halka ka socotaa marka tan waxay xukuumaddu aragtay xal baa loo arkay balta dadkii aan deegaanka inay dhulka kale Soomaaliyeed ka yimid in guriyoogiisa nabada lagu celiyo bal in ay dhiigan daadanaya joogsado waa inta waxay ahayd dadka doodaya matalan arrintan waxa lagu doodaya waqti in la siyaabo ahayd taasi miyaanay muuqanin ma horta runtii waa horta muddo in la siiyo laakiin xaaladan meesha ka taagan darteed ayay dowladuna muxuu ahaayey ay golaha wasiiraduna iyo dadka deegaanka iyo guddida nabadgelyada laascaanoodba ama gobolka soolba waxaa la isla gartay in dadkan baabuurta loo diyaariyo oo la saaro hantidoodana ay qaataan mid ogowna qof kaste oo hanti haystay qof wada lahayn baa jira oo la xasiyay laakiin hanti inta iyagu leeyihiin oo dadka reeso dadkaas ay ka tegeen oo la dhacaya ma jirto dadka wadada islaama nin wadada islaaminu nahay nin hantiisa ma qaadanayo waxa weeyaan markii la qaaday qof walba wuxuu lahaa ciduu kaga tegaya iyo cid ay wax wada lahayn baa jira laakiin saaritaankan la saaray waa xal laga geyn waayey dilkan dhacay balinu joogsadeen kale waxa la dilaya waxa weeye waa dadka indhaha u ahaa reer laascaanood ama gobolka sool ama maalqabeenka ahaa ama madaxda ahaa ama ciidamada ahaa ama haween ha noqdaan haldoorka ayaa la dilaya waa hagaag waad mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha axmed muumin seed oo barnaamijkan faaqidaada toddobaadka la hadlayey waatay aansiiyo markan mubaarig dadkani gobolada somalilan bay ku nool yihiin laascaanood qura kuma noola inkastoo ay hay-adaha amniga somalilan sheegeen in laascaanood dilalka soo noqnoqonaya darteed iyo arrimo amni loo bartilmaameedsaday maxay uga dhigan tahay dadka gobolada kale arrintan horta walaalo dembigu waa wax cad oo qofku kaloo ficil ku yimaado amba qowloo la yaqaano oo deedna qofkii lasoo qabto dembigii lagu caddeeyo maxkamad la taago marka horeba waxaanu kugu tuhunsanay inaad dil disho ma u dhigmaysay in caruurtii dadkii la dareeriyo ayaa isweydiin la diyey oo amba responka amba jawaabtay ka bixin lahayn mas-uuliyiinta amnigu su-aashan iyo dhibtan meesha ka dhacday ma u qalmaysay waxa tallaabadan ay qaadeen arrintaa kuwaa gobolkaa laascaanoodna waa lagu gafay oo tallaabo sharciga looma marin tiixee dastoorka lama raacin shuruucda kale caalamiga qaxoontiga iyo sifilka iyo xuquuqaha ka hadasha lama raacin wadda tan uga dhib yar dadkaa la saarayey muxuu ahaa go-aanka cidda qaadatay oo loo mari karayay ma jirin tallaabada ka dhib yar waxay ahayd dalka iyo dadkuba xitaa la garowshiya laga bixin laha dad in si fiican loo baadho kiiskan dembiilee lasoo qabqabto oo la yidhaahdo intaasoo dembi baa laascaanood ka dhacday waxaanu dembiyadaa u haynay 6 bilood ugu dambeeyay 7 qof oo dadka halkaa ku abtirsada xitaa taa lama hayo qof lama hayo casiis cali cantar somalilan waxaa had iyo jeer xataa qoraalka arrimaha dibadda ku jirtay in dalalka jaarkana ay kala shaqayso in dad soo qaxay muxuu ay ku noolaadaan si nabadgelyaana ugu noolaadaan go-aankani muxuu ku yahay wuxuu hayalo ku yahay taa aad sheegaysid ka hortegaya si fiican uga hortegaya tii maxaa ahayd international sharciga ahayd ee looga ahayd baa ayuu ka hortegaya wuxuu ka hortegayaa tii qaxootigu ka hortegaya tii dadnimadu ka hortegaya tii soomaalinimadu ka hortegaya waayo soomaali baynu isku nahay hargeysa dooxan hargeysa baan nin baa ku dhintay waxaa laga soo qabtay wajaale habeenkaa uu dhintay cabdirasaaq ee ugu dambeeyey ninkaa arrimaha gudaha u dhintay maxaa ahayde dowladaha hoose markuu dhintay laascaanood waxaan idhi ninkaas isla habeenkaas ninkaa wada dhinteen wajaalaa laga soo qabtay ninkii ciidanka jooga maxaa ahayde laascaanood ee booliiska ah guriga cabdilaahi labagole wuxuu jiraa 15 tallaabo way qaban waayeen marka guriga hortiisa lagu toogtay waxa weeye way jiifaan kuwaasina 7 seexdaan baan kuwana way soo jeedaanoo saqda dhexe qabtaan waagugama bariyeen wajaale ka soo qabtaan marka dalku inuu u wada sinaado sharciga inuu u wada sinaado xuquuqda dadka sida loo eegayo inuu u wada sinaado nabadda inuu u wada sinaado dhaqaalaha Soomaaliland la wada leeyahay in la helo weeyaan welina ma jirto hay-adaha amnigu ku doodayaan waxaan sugaynaa amnigii laascaanood tallaabadan ay qaadeenna farsamo ahaan iyo maamul ahaanba laakiin ujeedada laga leeyahay tahay in amniga la sugo ma ku muuqataa inay tahay miduu ku sugmayo ma ku filan tahay aniga sida ila muuqato kuma filla waayo sababta ah wuxuu dhinacaskii jiray maxaa layga soo helaya barriba waan lumaya waxa weeye dowladdeenu indhaheedu ma furna dowladdu indhaheeda inay furto oo ay yeelato nabad sugid ilaalisa dalka oo dhaqdhaqaaqa la socota oo dadka la socota oo wax walba la socota
in la helo weeye oo wararka si deg dega loo helo dabeetana si wax oolana wax looga qabto. haddii ay taa weydo laascaanood baad sheegaysaa, burcaa ku xigaysaa, berberaa ku xigaysa, saasaa dalka usii kala bowramay kasoo soconaysaa, hargeysu ma isugu soo ururaysaa, hargeysana waxba noqon mayso marka. xildhibaan maxamed abiib maxay ka dhalan karaa arrintan? waxaa ka dhalan horta kelmada ka horreysiiye dawladda aad dad maqasho, dawlad dadka dhibaata ka furta, way noolaysaa, way karaamaysaa, way sharaftaa. laakiin dawladnimadu maaha hata dadka karaamada ka qaaday, sharafta ka qaaday. shalay dad ladnaayo furaashiya cariishiya iyo guryo fiican ku jiray baa maanta gidaa hogta. dawladnimadu taama, dawladnimadu taama inay dadka dhibaatada ka furatay hoy siiso. ayaa qaar hoy fiican ku jiray oo 30 sano Somaliland jooga ayaa maanta gidaa hogta. qaabka ilaahay haynaga leexiyo. gaaladu waxay yidhahdaan markay halkaas ugu guriso waxay yidhahdaa kelmad bay yidhahdaa markay derbigaa moogtahay not in my name bay yidhahdaa. aniga magacayga laguma gelin taas. yaa qaabka haynaga leexiyo, isha haynaga leexiyo. dadkaasina waa run refanjigu Soomaalidu weliba waxa maaragtay argoosku wax Soomaalida u dhib yar. waxaan fursadan uga faa'iidaysan yahay walaalaha leh samra oo kuwa kaloon iyagu waxaan boogayn oo halkaa jooga idinkuna ku xadgudbina samra ilaahay idinma hooji doono. hadday qaar ka idin xumeeyo joogo waa koox bareedho weeye. dadka reer Somaliland oo dhan way ka soo jeedaan. arrintan way fitay argaaban iyo abaabul ka socda, abaabul ka socda oo baxliyo shacabka ay kacaan. dawladda ka mas'uul oo khasaare ka yimaadana hargeysa ku fidi karta. marka degel duqdiisii durdurisay aragkiisa maxaa marin bari dawladdii baa durdurisay oo fawdada furtay shacabkii. markaasoo inay sharciga gacantooda ku qaataan Soomaaliland dee markaa dadka reer argaaban wax leh war walaal dadka wada nooleeyeen afto dhigatay yaana gulufka ka socda laascaanood idinkuna inaad ku ginac qabsataan idinma wanaagsan. dad wanaagsan baatiin, gobolkii lagu urursanaa baatiin, xamil oo dulqaato weliba dadka ilaaliya oo difaaco wax tiraadaan waa dadkan waan wada nooleeyeen ciddi dambilaad soo qorta diyo ganacsigan ilaahay baa risqa qof walba ku joogo ku qoraytay. arrintan markaa waxaa ka dhaanaya isnacayb baa ka dhalanaya, dadka dhexdiisa dhibaato ku abuuraysa. hadda imika sool dhexdeedii baaba ay ka socotaan. waxaa arkay ninka ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya fadhida Roble isaga laftiisu uga hadlay dee si macquula maahin gulufkii uu qayb ka noqdo. waxay inuu ka hadlo gargaar in dadkaa la qabto gacanta lagu qabto bay loofayaan ayay heedeen. isna dee sii siyaasadey dee mas-uuliyad maaha taasina tahay mas-uuliyad maaha. marka waxa weyaan dadku mas-uuliyiintii ilaahay uga baqan mas-uuliyadda fiican inay dadka riciyadda waa inay ilaaliyaanba fiican inay talaan la gaartaan maayo Soomaaliland ka bixin laascaanood jooga ismaalii garashalaan bay ka tahay. waa gartay iyaga laftooda inta su'aal laga weydiiyaan mudan maxaa ka dhalan kara dadka Soomaalida shacabku waxbay wadaagaan dhulka Soomaaliyeed meel walba Soomaaliya way wada joogtaa. arrintan ma saameyn kartaa, ma ka dhalan kartaa nacayb Soomaalinimo dadka shacabka ma ka dhalan kartaa labada? ka dhalan kartaayo maantaba wixii Somaliland u dhashay ee baydhabo ku nool way ogyihiin dhibaatada ku dhacday. way dadkii kale marka sida loo geysto iyaguna way baqayaan, tarar baa galaya. awalna waxay ku joogeen nabad iyo wanaag iyo Soomaalinimo ay ku fadhiyeen oo danahooda ku haysteen. marka way dhacaysaa hadda halkan tid forta hadda halkan wax ka eridid xaggaas laga soo eriyay ma garata. marka dhibaato badan oo nabadgelyo ay keenaysaa. arrintan arrin xasaasi ah inay farfaraan oo ay maganaysaa galaan dawladdeenu. ma jecleen anigu maxaa ahayday sida ay u gashay ee degdega ee la raafayo markii wixii dambi ahaa in la qabto, wixii kale ee laga tuunsayay in la saaro, laakiin dadka in la kala reebay. waxaan dhegeystayaasha marka la xasuusinaynaa in guud ahaan hay-adaha ku shaqada leh arrintan in telefoonada ka jawaabid la-aantooda ee ka hadal la-aanta in laga wareysta arrintan hadday tahay arrimaha gudaha, hadday tahay ciidamada booliska. sidaa darteed dadka dhegeystayaasha mar kale aan xasuusinayaa doorkii dhinaca xukuumaddu ay arrinta wax ka odhan lahaayeen anaan anagu ka hayn maqnaanshahooda telefoonadana in badan aanu muxuu ahaye ku daalnay. waatay mubaarak waxaan imanayaa isla su-aashii calan weydiiyey si guud maxaa ka dhalan kara? ka dhalan karta waa cawaaqib xun oo isnacayba oo dadka Somaliland ee adduunyada ku firfirsan ee laga yaabo inay beero waddanka aad uma kala qaanay kulliin dhulka
in ay cidhiidhi iyo amni darro iyo bilirqaysi iyo xumaani ku dhacdo laga aargoosto waana sunno xun. tallaabadaad qaadaysaa nirig xalaali hal xalaali nirig xaalaala ma dhasha bay ahayd. tallaabo amni lagu sugana may hayn. dadka waxay keenaysaa nacay iyo in somalilan dadkeedii lasoo ururiyo oo soomaalidii kale u aragto dad baas oo aan lana noolaan karin oo aan loo hoyan karin oo gobonimo ku jirin. marka arrin aada iyo aada xun bay keenaysaa xagga dhaqaalaha, xagga socodka, xagga wax walba way ka saameynaysaa. waatay mubaarak waad mahadsantay. isla maxamed inagoo xal ka imaano gabagabadii barnamijka kusoo dhow laakiin aan su-aal ku raaciyo matalan haddii imika lascanood hadaladaynu xiganayno maadaama halkan aana cidi ka fadhin xukuumadda waxa weeye hadalladay soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda iyo boolisku. arrimaha dibadda waxaa ku jiray tallaabada somalilan way ku khasbanaatay. waxaa kaloo ku jiray amniga lascanood darteed ayaa loo sameeyey. haddii taa aynu xigano ma suuragalba in gobollo kale ay ku fido? wayba fiday oo shacabkii dee waa kuwa gacanta ku qaatay. wax la yidhahdo waan ku khasbanayna ma jirto. dadkani waad garanaysaa nin horta dadka soo qaxeeya meelahan yimaadaay waa dadkii deganaaye colaada nacay wey intooda badan 90% wasna oo aada u nugul nabad jacayl baa keenaalka ilama aha in qof dee fallaago oo dee lagama waayo qof fallaage inay dad si maaragtay kulana shida ama si guud dad u badheeri kara shar ama wax dili kara iyagaba magageliya doona dee aad bood garanaysaa dee qofka reer Soomaaliya garanaya markuu waddan shiiyo joogo dhulku isku nabaya war waddankani ilaa maanta sharcigeeda ku qoran dadkii 60kii aabayaasho jireen dad baa hanti kula fooqiyo kule 5 sanadood baad ingiriis ku wada qaadataan maxaa la yidhahdaa dhalashada markaad tagaan halka yaacan dee inaguna waddan baynu noo shuruucda caalamigan aqbalnay ninka 30 sano ganacsi ku lahaa Laascaanood ama Boorame ku lahaa ama Hargeysa ku lahaa xaq wuxuu leeyahay inuu sharcigiisa u itaaq lahaa xaq uu lahaa haddii weli dastuurka aan la fulino dastuurkii weli arrintaa xaray waxay in la sii ixtiraamo si isfahma lagu ixtiraamo iyadoo lagu qiimeeyo oo lagu shafado mubaarak inagoo gabagabada imaana waxa kelmaddaas baynu xiganaynaa amniga Laascaanood baa lagu magacaabay in dadkan loo saaray suuragal baa in gobollo kale ay ku fido. de waa arrin iska hor imaado tanaaqud isku samaynaysa. haddii ay u jeedeen ay dhahdeen tallaabadan waxaanu u qaadnay in aanu Laascaanood amni darradii iyo dilkii ka dhacayay jawaabteedii haddana gobollo kale oo aanay waxba ka dhicin ay farafareeyaan dee waa arrin dad target group oo dad qura uun la beegsanayo oo qof aan waxba gelin oo inoosan oo dembilaawo ahoo Somaliland sharci kusoo galo sharci ku degan oo ku ganacsanayo ku dhalay oo ku dhaqmay lagu saarayo maya waa arrin weyn oo iska hor imanaysa oo hadalkoodii bay burinaysaa waa burin markuu tusaale ahaan hadalka ay leeyihiin amnigii baanu dartii baanu tan u qaadnay ee haddana ay leeyihiin gobollo kale aanu geynayna waa arrin ka hor imanaysa sharciga iyo qaynuunka iyo xitaa go-aankoodii bay burinaysaa ay ka dhigaysa waxba kama jiraan. markaa waxaan kelmad kalaan ku darsanayaa unoo ah arrintaasi sharci iyo caqli midna suurtagal umay ahayn. dariiqa loo maray habraaca loo maray sida loo gacanta loo maroojiyey loo dadejiyey waxaasoo dhan shuruucdeenna dastuurkeenna shareecada islaamka xeerarka caalamiga ah ee Somaliland ay aqbashay ka midka waxaasoo dhan waa arrin waa la jibiyey looma aabeeynin lama eegin sharci looma raacin waddankuna waa waddan dee curdina soo korayo siduu sharciga u ictiraamo ayaa beesha caalamka iyo adduunyada ku aaminaysaayo ay lagu maalgashanayaayo lagu soo degayaayo laakiin meel waxaas rikoorkii u gelaya haddii rikoor xun kuu galaan oo liisanka aad qaadanaysa imika inaad shil badanta ay kuugu jirto meel liisan lagu siinayo aad iyo aad baana arrintaa xalkii baan imanaa lakin cali su-aasha aan ku weydiiyay adiga la figaa imika tusaale ahaan gobollo kale lasoo hadal qaaday marka amnigii Laascaanood haddii gaar u ahayd arrintani ma muuqato waayo sababto ah hadda waxay sheegaysaa haddii gobollada kale la tago dee target in loo yahay reer in la doonayo in laga saaro dal taasina waa waxyaalaha mamnuuca inaga ah tanaa lagu khaldamee khalad kale aan galo haddana oo adduunka o dhan qayliyo oo ceerigaabo way joogaan burcana way joogaan dee berrinta toba dheer baa ku xigaysa ceerigaabo waxay maqlahay 15 cisho ha kaga baxaan laakiin weli lama hayo qoraal cad oo rasmiya laakiin dadka deegaanka ah ee ceerigaabo degan waxa weeye hadii jiray haytrin baa imanay naabacaasho ay oranay waxa iyagii ka shaqaystaan waxa iyagii sidaan dadka qaar waxa weeye in ay loo ogolaado maaha dawladda ka hortaagneed iyo sharciga haddii dadka leeyahay sharciga gacanta ku qaata
dee dadka way eryanayaan. waa garta dowladdu damaanadii ay qaatay waa inay fulisaa. tan imika laynagu haysto mid ka daran ayaa imanaysa oo adduunkao dhan ka soo qaylin doona. dowladdu ha ka digtoonaato inay cid dambe saarto oo ay gobol ka saarto ayaan anigu leehay. ha ku eekaato intii imika khaladkii imika dhacay khalad kale haddana yay ku xogsiin. way wada joogaan ilaa doora baa la jooga, sayrac baa la jooga, dad ajnabi meel walba way jooga. marka waa khalad. soomaali meel walba way joogta, jaamacadaa jira, waxbarashaa jirta, dadku way isku dhex jiraan. wey waddooyinka inoo furan way isku dhex jiraan dadkii yaan la kala saarin. marka haddii dadka la kala saaro haytari nabcaansho iyo waxay iman doontaa umuladoxba iman doonta. waxaynu maraynaa xalkii ugu dambeeyey cali aan kaa bilaabo. sidee baa qofka dembiilaha ahna aanu u dhuumanin oo shaqadii dembige ee uu galay shaqadeeda iyo waajibkii sharciga ahaa looga maraa looga qabsadaa, qof kalena aan loogu xadgudbin oo aanay u dhicin iyadoo laisle waxdawey wax ka weyn u iman. xalkase muxuu ku yahay aad arrintaas leeda waa lagu furdaamin karaa? waxaa jira dal markaynu nahay dee waxaa u dhisan hay-ado cadaaladiya, hay-ado securitygiya, hay-ado ayaa dhisan isku wada xidhan. waa inay hay-adahaas isku wada xidhan yihin. waa in la heli karaa qofkaas dembiilaha oo keliya ee aan la odhan karin dee maxaa ahayde maxamed abin baa ku jiray oo lagu dari kara ee lagu dari karaa un in adigu dembiga kugu ekaado. haddii laakiin la yidhahdo dadkao dhan baa dembiilayaala sidaa imika dhacday oo weli la leeyahay waa la wadaa, dowladdu yay jeedinayn indhaha dadka, yay ku jeedinayn meel kale. wixii iyadu ay ku khasaartay inay ku jeediso cid kale maaha. waxaan odhan lahaa dowladdu ha ka waantowdo in ummadahuyna hadal hayaan, inaynu sideenna hore u dhaqanno, inaynu nahano dal la leeyahay waxbuu hiranayaayo meel buu ku socdaayo, dee wuxuu leeyahay gool buu leeyahay uu ku socdo inuu ka mid noqdo adduunka, dal adduunka ka mid noqda. laakiin sidan imika ma nahina waxaa laynagu celiyay 1990gii. aad baad mahadsantay cali. waatay mubaarig su-aasha hadda khadar ka jawaabo waan ku raacsanay cali intaa uu ka jawaabayba. waxa weeye waxay arrinkaa noqonaysaa xalkeedu hay-adaha amniga oo xilkooda u guta, xilkoodii waajibaadkooda guta, oo cadaalada hor keena ciddii dembiga gashay, oo baadha ilaalisa amniga muwaadiniinta iyo mas-uuliyiinta iyo qoorweynta lalaynayna ilaaliso xiliska saarta, oo si feejigaan leh u ilaalisa, oo ciddii sharciga ku gaftana sharciga horkeeda. waay xildhibaan maxamed ugu dambeyn xal sidee dembiilaha ay waajibkeeda uga gudan kartaa dowladdu iyadoo aan ku xadgudbin dad kale oan waxba geysanin? soomaaliya wa taqaanaayo aqoon buu leedahay sida dembiilaha loo soo qabto dadka kalena loo ilaaliyo. aqoon dheer buu leedahay. kaysas ay adag tahay in lasoo baaraa buu soo baarayno cidda ku hooseeyey iyo kuwa baaris lagu helayo banaanka la keenay oo saa loo kala saaro ciddii cadaaladda xaq ula dina mariya la mariya intii kalena fasax la siiyey. dee dalku waa dalkiiyo dee tiyaa shaqayso. xalku wax wey waa waxaad geysateen waa geysateen joojiya hortaaga in lagu joojiyaan soo jeedinaynaa. intaad geysateen waa geysateen inayna tallaabadii sii socono dadka inta hadhay aad ka joojisaan maxaa la idhahdaa fadqalalada iyo dhibaatada iyo qixinta iyo cayrinta iyo werwerka aad ku abuurteen oo bayaan ku soo baxo madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan usoo jeedinaya mudan muuse biyo cabdi inuu qoraal ka soo saaro oo go-aan madaxweyne oo sharafta qarannimada iyo ummaddan madaxweyneha u yahay si aan magaxum uga raacin adduunyada kale iyo dadkaynu walaalaana soomaaliyeed, inuu qoraal soo saaro abolojes ka bixiyay intii dhacday. inta dambana u yidhahda nabadgeliyaa ku joogaysaan ilaa qof isagu dembi gala mooyaane inuu tallaabo ka qaado raggii waxaa sameeyey madaxweynaha suu magaciisa u badbaadiyo magaca ummadda somaliland uu badbaadiyo. waa waajib weyaan ayaa ka ratamaya. waa hagaag dhegaystayaal, intaasi waxaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o edu ka imanayay toddobaadkan magaalada hargeysa, waxaana ku saabsanaa oanu kaga hadlaynay tallaabada somalilan ay kaga saartay magaalada laascaanood dadka u dhashay koonfurta soomaaliya. barnaamijkan waxaa igala qaybgelaya oan ugu mahadnaqaya wakhtigooda siyaasi cali axmed cabdi cali cantar oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka sool. sidoo kale barnaamijka waxaa igu marti ahaa oo igala qaybgelayay xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan iyo sharciyaqaan mubaarig maxamuud fallaag.
dhammaantii waa ku mahadsantihiin wakhtigiina nasiseen dhegaystayaal barnaamijkii faaqidada toddobaadku intaa ayuu ku dhan yahay tan iyo kulan dambe waa anigoo khadar maxamed cakulle oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay khadar maxamed cakulle oo inoo soo diyaariyey soona jeediyey barnaamijkii faaqidada toddobaadka. halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a washington. haatanna inta aanan aadin dhinacii heesaha aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka caawa ugu waaweynaa. ku dhowaad 50 ruux ayaa ku dhintay 143 kalena oo ay ku dhaawacmeen weerar qaraxyo loo adeegsaday oo jimcihii maanta ka dhacay masaajid ku yaala waqooyiga dalka afghanistan. qaraxa ayaa ka dhacay masaajidka qozaar sayid cabaad oo ku yaala gobolka kundus, kaas oo ah masjid ay ku tukadaan bulshada laga tirada badan yahay ee muslimiinta shiicada. goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xili lagu jiray salaadii jimcaha ee maanta. afayeenka taalibaan zabiixullah mujaahid ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad ka mid ahaa bulshada shiicada. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ilaa iyo hadda, hase ahaatee qaraxan ayaa yimid maalmo yar kadib markii ay qaraxyo sidan oo kale ah lala beegsaday dadka shiicada ah ee laga tirada badan yahay ee afghanistan, kuwaas oo ay sheegteen kooxda daacish. tan iyo intii ay taalibaan la wareegtay talada afghanistan waxaa sii xoogeysanaya khatarta ay kala kulmayaan kooxda uu xafiiltanka kala dhexeeyo ee daacish. laba saxafi oo u kala dhashay dalalka ruushka iyo filibiin ayaa jimcaha maanta ah ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ee sanadkan, taas oo ay ku muteysteen u halgamidda xorriyadda hadalka. Maria Reza iyo Dmitry Muratov ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda kadib markii si dhiiranaan ku jirta ay ugu dagaalameen xorriyatul qowlka dalalkooda. Berit Reis Anderson oo ka mid ah madaxda guddiga Nobel ee dalka Norway ayaa sheegtay in labadani wariye aysan matalin keliya dalalkooda, balse ay sidoo kale wakiil ka yihiin dhammaan saxafiyiinta caalamka ee u taagan difaacidda xorriyadda hadalka xilli ay aad u sii kordhayso cadaadiska iyo madax uga istaagidda dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. waa markii ugu horreysay ee ay saxafiyiin ku guuleystaan abaalmarinta nabadda tan iyo sanadka 1935. golaha senadka mareykanka ayaa khamiistii ansixiyey xeer u ogolaanaya dowladda mareykanka inay si kumeel gaar ah sare ugu qaado heerka xadaynta deymaha, taas oo ka badbaadisay dowladda in ay bishan ku dhacdo qaandayn oo taariikhi ah. hase yeeshee weli waxa uu xeerkani u baahnaan doonaa in xubnaha labada xisbi ee u matala golayaasha sharci dejinta mareykanka ay kasii doodi doonaan ilaa horaanta bisha Disembar ee sanadkan. golaha sanadka ayaa xalay ugu codeeyey 61 mudane oo ogolaatay kadib markii ay 50 xubin ee dimuqraadigu ay taageero ka heleen ilaa iyo 11 mudane oo jamhuuri ah. taasi ayaana fursad u siinaysa dowladda ama maamulka aqalka cad in xadaynta deynta dowladda la gaarsiiyo 28.4 trilyan oo dollarka mareykanka ah. aqalka wakiilada ayaa isna lagu wadaa in uu ansixiyo xeerkan.